بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سوريتينيا دليرتي deeqda inoogu deeqday Axmed Cismaan Cabdi oo kamid ah dhalinyarta soo abaabushay deeqda lagu deeqo wadada. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'di dhammaan xubnahan sharafta badan ee ka soo qayb galay munaasabadan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa guddiga gacanta ku haysa dhismaha wadada wada Bariis Balaca Bane Hargeysa iyo injineerada wadadaba aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad baan idinku mahad celinayaa inta marka laga yimaado magacaygu waa Axmed Cismaan Cabdi anigoo ku hadlaya xubin maamulka ururka Xaraf Voluntary and Development Organization waxaanu maanta halkan oo taariikhdu tahay 28 bisha September 2020 aanu ku wareejinaynaa lacag aanu ugu tala galnay inaanu kaga qayb qaadano dhismaha wadada wada Bariis oo dhan $15,000 runtii waa gacantii koobaad aanu kaga qayb galayno wadada waxaan rajaynayaa inaanay noqonin tii ugu dambeysay insha Allah inta marka laga yimaado waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa xubnihii koobnaa ee sida degdega ah u soo bixiyay lacagtaasi si ay wadada uga qayb qaataan oo leeyahay wax wanaagsan baad sameyseen ilaahay baana idinka abaal marin doona subhanahu wa ta'ala waxaan sidoo kale aanu mahad celinayaa oo nu ducaynaynaa iyagana guddiga gacanta ku haysa wadada wada Bariis oo runtii mashruuc weyn oo khayriya gacanta ku haya iyagana waxaan u rajaynaynaa in ilaahay hawsha iyo shaqada uu fudaydiyo hawsha iyo shaqadaana uu ku guuleeyo oo wadada ay dhameystiraan haddii alla ka dhigo aad iyo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad baan idinku mahad celinayaa ugu dambeyn ururka Xaraf Voluntary and Development Organization waxay ballan qaadayaan oo fariin ahaan aan guddiga soo gaarsiinayaan inay wadadaasi intay socoto ay garab taagnaan doonaan guddiga gacanna ka geysan doonaan inta ka dhamaanaysa aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wadada wada Bariis oo kaliba muhiimad leh iyo istiraatiijiyad baa leh isla markaana ah wadad muhiima kaliba wixii hadal aan oran lahaana Axmed Cismaan baa yiri oo inoo sheegay marka ururkan oo kaliba urur yar oo koobana isla markaana waxa isku soo ururiyeen kaliba si kooban loo soo ururiyay laakiin si wanaag wax noqotay marka insha Allah sida iyo si kasi badan ba waxaan filaynaa inaan sameeyno oo aanu marar badan hawshaas ka qayb qaadano oo insha Allah wadadaasna waxaan filaynaa in Ilaahay ka dhigo wado hirgasha oo kaliba wax badan ka tari doonta dalka guddiga wadada mashruuca wada Bariis halkan isugu timid aad iyo aad baan u salaamayaa injineerada maamulka marti sharafta ka soo qayb gashay waxaan isku salaamayaa marka koobaad iyo marka labaadba salaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo ka socda wadada guddiga Xaraf Organization waxaan halkan ku wareejinaynaa lacag $15,000 oo kulay uu noo gudoobay uu noo wareejiyay lacagta Axmed Cismaan kulay deeqdii ugu horeysa noqon mayso tii labaadna noqon mayso waxaan u taaganahay haddaanu nahay guddiga magaranaysa Xaraf Organization inaan wixii samafala aan ugu deeqno meelaha ay wax ka socdaan hadday tahay biyo la'aanta hadday tahay wadooyinka dhismaha aad iyo aad u wanaagsan salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh
aad iyo aad ugu mahadinayaan mahad ugu dirayaa oon leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar hayda ka siiyo maalinta bini'aadmigu baahan yahay dadkii hantidan soo bixiyey iyo dadkii soo abaabulayba siiba ururka xaraf oo runtii bilow fiican oo annaguna aad ugu faraxnay hawshan ka qaybgalkooga ay ka soo qayb galeen aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa hadal badan oo kaloo de meesha la yidhaa ma yaallo taariikhdii waddadana laga sheekeeyey oo waa wadda bariis oo waa taariikh waa dheer bay lahayd oo waa waddada dee maanta adduunku waddooyin badan baa jira waxaan aanu idhahdaa tii xariirigii tii jayna ka imanaysay iman jirtay eeshiyada soke ayuunbay la mid tahay xariiri waayo intay badda ka timaaday tegi jirtay gobolka soomaalida halka ugu dambaysa ilaa kenya marka tii baynu noolaynaa inta badanna innaga waddooyinkan yaree la samaystay ee reeruhu iyo magaraysa deegaanadu samaysteen tani way ka istaraatiijiyan tahay waayo laba dal bay isku xidhaysa waxaynu doonaynaa waxa ka yimaada koonfurta kenya inuu inoo yimaado hargeysa caasimadeenniba waxay ku xidhaysaa dalal marka daa'iman waxaan faraynaa dhammaan bulshada reer somalilan inay waddadan ka qayb galaan waddo degaan ku kooban maaha waa waddo istaraatiijiya oo dalka dalal ku xidhaysa oo dhaqaalay noo soo xidhinaysa markaa dhammaan waxaynu faraynaa bulshada somalilan qurba iyo qurbajoog iyo qolqoljoogba inay hawshan ka soo qayb galaan waa hawl caama oo min kalaascaanoo jooga ilaa kasaylac jooga u taalla oo waa waddo muhiima markaa mar labaad waxaan u mahad celinayaa dhammaan xubnaha ururkan xaraf organization ee maanta inagu soo wareejiyey lacagtan $15,000 waa bilow fiican insha allah waxaana ballan qaaday inaad sii wadaysaan xaraf waxa weeye dabcan dee waa halkii hore looga sii guuray xarshin looga guuray markaa reer xarafow xil siyaada idin saaran aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mid afaraadba waad mahadsantihiin guddiga maanta nala jooga ee xaraf voluntary and development organization hafto oo aanu kala wareegayno $15,000 oo dhismaha wadda bariis lacagtii advance-ka ahayd oo horaanteeda waxaan weliba mar labaad uga mahadnaqaynaa in lacagtaas ay tahay mid soconaysa haddaan xaraf organization-kan wax ka yara taabtana axmed iyo sheekh iyo fu'aad intaba hawlo kale oo badan baan weliba ka soo wada xidhiidhno xagga biyaha oo istaraatada in 50-60 kilomitira oo laga bilaabo ballay cabane wixii uga rogan galbeed oo ilaa meel allay baday ku dhow xarafna ku soo dhow oo laamigaba soo saaran geologically waxaanu surveeye badan ka howlgalay oo ilaa weliba waqtigii abaaraha oo hawlaha abaaruhu ku jireen hawlo badan oo kuwan la mid ah aad iyo aad baynu uga mahad celinaynaa aad iyo aad baanu hawshaa horena uga mahadnaqaynaa tanna si weyn oo mugiyo miisaanle baanu uga mahadnaqaynaa cuqaasha iyo odayaasha iyo intuba waxay isku raaceen in alla barakeeyo annana waxaanu leenahay si weyn oo mugiyo miisaanle allahu barakeeyo halkii ay ka soo saareenna wax ka qiimo badan iyagana allaha soo geliyo annagana rabbi ha noogu soo dhiibo waddadana kuwii nagu astura allah ka dhigo anu magaca waxaan ka dhigi lahaa astur voluntary organization oo dee maanta horta guddiga dhaqaalaha ay astureen xaaladda iyada oo adag waddada inteedii hore dhammaatay ama cleaninkii iyo clearinkii uu dhammaaday caratuulkii uu bilaabmayo oo weliba guddigii naga sarreeyeyna inta badan ay aad haddaanay xataa kelmadda nagu odhan jirkooda iyo dareenkooda aad ka garanayso war maxaa la qabanayaayo maxay qabanayaano maxaa wuxuun loo soo tuuranayay markaa astur voluntary organization magaca labaadna maanta waanu ugu darray waxaanu ka guddoonay $15,000 $15,000 baanu kale ka guddoonay haddana waa wada arki doontaan intii soo bixisay iyo inta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wadada bariis haddaan muxuu ahaa warbixin koobanadii ka siiyo waxaa dhammaaday wejigii hore ee wadda bannaynta wejigii hore ee wadda bannaynta ayaa dhammaaday waxaa markaa loo diyaargaroobayaa in caratuulkii la bilaabo dabeecadda dhulka marinkan ay waddadu marayso ayaa waxaan ku qiyaasnay in 3 xaalo uu ka kooban yahay xaalad dhoobey ah
oo matalan rista dacwaley iyo rista muxuu ahaa garabis dhulkii la odhan jiray iyo marinkii muxuu ahaa sayla ee wadaadku ka soo rogman jiray saddexdaa meelood waxaanu ictiqaadsanahay inay tahay dhoowe qaybta labaad waa dhulbuureed waxaa ka mid ah masallaha lafta dacwaley muxuu ahaa lafta kale ee muxuu ahaa sayla degarabis muxuu ahaa laanta ilaa balayga abane ilaa balay abane ha dhulkaasina waa dhul iska dhullafeeda oo adag micnihii xagga salka qaybta saddexaad waa ciid iyo ama niis iyo carro ayay isugu jirtaa markaad rista dacwale ka bilowdo ilaa sayla bari ilaa sayla bari dhulkaasina waa dhul iska ciid dhoobeed iska ah saddexdaa xaalo ayuu ka kooban tahay marinka waddadu mid kastana waxay doonaysaa in sideeda loo wajaho xagga farsamada waayo dhulka dhoobaydaa iyo dhulka buuraha way kala duwan yihiin marka insha allah warbixintu waxay hagaagi doontaa jifal dhiman lama tusabe muxuu la odhan jiray sahan baanu geli dabeeto waxaanu soo bandhigi sawiradii naqshadihii yani xogtii oo muxuu ahaa qoran ayaanu sida boodhkan oo kale halkan ugu shaqeeya haddii aan la yidhaha way ku mahadsan yihiin dhallinyarta ururka xaraf organisation ee isxilqaamay waa wax ku dayasho mudan wax ku dayasho mudan gaar ahaan anigu xaafadan ka soo jeedo waxaa la yidhi muxuu ahaa inadeerka fayno kuuma ogola foolxumana uu kuga caaya meesha ha laga kaco ha la dadaalo ha laga qayb qaato mashruuca dhismaha oo markaynu dad muslima nahay yani waddo halkay kaga qoran tahay muxuu ahaa diinteenna islaamka waa meel weyn waa meel weyn ajar weynna way leedahay if iyo aakhiraba marka ha la dadaalo ha laga qayb qaato duruufo kasta ha jiraan laakiin ha la dadaalo waan idin waa mahadnaqayaa martida sharafta kale ee ka soo qayb gashay waana mahadsantihiin alxamdulilah ilaahay bay mahadi u sugan tahay isugu keenay inaynu isugu nimaadno saaka halkan waasan inoo bariyay inaynu nabad iyo caano ku joogno alxamdulilah ilaahay baa mahadle waan idin salaamayaa sidaa u dhamtihiin dhammaan marti sharafta isugu timiday guddida iyo hay-addan oo maanta aanu mahadnaq weyn baanu idiin haynaa walaalo halkaad ka soo saarteen wax khayr qaba Allah idinku bedelo inta soo bixisayna eed halkaad waxa weeyaan ummadu nimba maalin un buuday horta tamariya yaa labeeyo liibaanay baanu leenahay maanta anagu qoladiina yaa labeeyo liibaanay baan leenahay waxa weeyaan walaalo sadaqadu waa wax wanaagsan waa jaari waa wado tacabkay u baahan tahayna waa la garanayaa wax waliba halku marayo dhaqaale waxaan lahaynin waxba kama soconayaan marka dadkayga qurbaha jooga iyo dadkayga magaalada joogaba iyo wadankoo dhan ninkii ilaahay wax siiyayba waxa ku darsada baanu leenahay bismillaahi raxmaani raxiim guddiga xafladan iskugu timiday rag iyo dumarba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadalka intii badnaawd waa la yidhi waddadii waxa soo dhammaaday iminka sarbeynkii iminka deedna waxaa ku xigi doona caratuulku markuu dhammaadana waxaa ku xigi doona daamurkii intaas marka ay socoto waxaa loo baahan yahay dibad iyo gudaba horaa loo yidhi annagu waan ku sii hadlayaa waxaa loo baahan yahay in la wada dadaalo qof kastaba meesha kaga soo hagaagtay inuu ku dadaalo waxaan weliba aad iyo aad ula hadlaya magaalada degaanaya ee Leicester oon leeyahay laydima hayo hadal laydima hayo adduun laydima hayo waxba laydima hayo Leicester ay ka soo qayb gala
lasterna waxa weyn meeshan deganahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka waxaan leeyahay waddadaasi ku koobnaan maysa intaase insha allah mustaqbalka waxay noqon doontaa inaynu halkii kalluunka laga soo qaado in halkaa lagu cuno waana intii badnaydna xagga waqooyiga way noo samaysan tahay taa nin waliba ha ku talagalo carruurtana ha loo sheego dhallinyaradana ha la fahansiiyo marka waxaan leeyahay ururkan maanta iskugu ka yeedhay ee maanta deeqda wanaagsan nagu wareejinayana waxaan leeyahay magacaa qorateen waa xaraf soo maaha xaraf markii la leeyahay sadka weyn baa laga rabaa sababta waa maxay nus dollar hadday bixiyaan reer xaraf inaan malyan lacag ka yaraanin baan qabaa anigu reer xaraf magaca xaraf la baxay marka waxaan leeyahay idinkoo mahadsan oo hormoodkii waddada ah uguna horreeyey wax ku dhawaaqa waxaan leeyahay nus dollarun xukuma qoladaa maanta xaraf waxay furtay albaab weyn bay furtay hargeyso oo keliya intaasoo ururoo dhallinyaro iyo magacka dumar iyo toban magac laho deegaanka meeshaabaa jooga ururada deegaankii magacyadooda aanu idaacadaha ka maqalno waxaanu leenahay maadaama maanta xaraf ugu soo horreysay waaryaan laydinka badin hadduu dumar yahay hadduu rag hadduu dhallinyaro si yahayba waxaa laydinka doonayaa idinkoo urura inay istaba gashaan oo maalin baan urur soo dhoweyno urur hebel intan uu keenay urur hebel intan uu keenay ayaa laydinka rabaa ha fadhiina meesha waxaa kaloo iyana ku darayaa warbixintii ina siiyeen mukhtaar dhambaal oo ingiriiska u badnayd maadaama aynu ingiriiska ku bilownayn dagaalkeena xasan cali weydiray iyagana waxa laga doonayaa inay kuwa ku xiga noqdaan hore gobollada kale qorbayaasha kale ay ka soo horeeyaan oo iyaguna ay soo dhiibaan intaa waxa ay raacaa axmed raan baa xaraf hadday $1 bixiso malaayiin buu noqonayaa dee way fiicantahay haddana waxa leeyahay inta kale ay idinkuna xaraf ku daro oo $1 bixiyo dee malaayiinkaas ay nagu filaan haddii accountado wada haysataan shaashadaha meel walba waa laga sheegay meel walba ku qorayin ciddii aan haysan waan u sheegaynaa haddaan nin walba waxaad subaxdii aad toosto aad ku rido waaga aan shaqada qaranka baan u malaynayaa ayaa daasad yar baan dhigay dukaan gurigayga markaan sii hooyanayaa habeenkii markaan sii socdo wixii shilimaadee jeebkii ku jiraan ku ridi jiray deetana waan iska dhaafi jiray baashii way buuxsantay nin aad iyo aad aan isu jecel lahay oo habeenkii dambe baahan baa ii yimid maba ogiba wax ku jira baashii war maxaynu yeelaa raanka soo baano markaa shaqada qarankana waan hayo anigu aaba iska xiiraya habalnimada baan ku meel baan wax ku ogaay daasad yar baan hormisay lacag bad baabay noqotay marka labadanu kala qaybsano marka hore waxaan isaga may ku filaanay anigii bari ku celin daasad ay ku jiray idaaya marka waxa la ururiyaa faa'iidada leedahay lacag kale ma bixin jiray habeenkii markaan seexan ma jeebkayga taaban jiray wixii shilin baan ku ridi jiray hatta warqad kuma ridi jirin markaasay baashii buuxsantay marka hadda waxaan leeyahay maanta shilinkii nin walba shilinkii uu $1 iskaga rid accountka malaayiin bay noqonaysaa waddadana faa'iidada leedahay cidna loo sheegi maayo waa waddo ganacsi horta asalkeedu magaceeda waddo ganacsi wadda bariis marka la yidhaahdo daadan yar waxaa laga yaabaa qarinaynaa wadda bariis oo xaggee maraysa wadda bariisna hadiyo goor maanta aynu macnaynaa waa xaraf ilaa iyo bulxaar ilaa iyo dhagax buur waxaan jeedaa bulxaar ilaa dhagax buur waddada marta iyo deegaanka wixii dhex maray iyo mara un weeye ayay ahaan jirto saasaa halkaa looga mari jiray marka anigu waxaan caamta aad u guwaabinayaa halka yar aynu ka bilownee halkaa yar aynu $1 bixinno ururada aan sheegayana waxaan filayaa mid aan aad u aqaanin aan ku bilaabi doono kaga soo tufi doonee ururadaana aynu dhiiri gelinno oo urur waliba ka kalaha ku daydo waayo maanta markay tuulo la yidhaahdo tuuladii waxay horreysay garibis wax lacag bixiya markay tuulo noqoto markay urur noqotana waxa ku xiga xaraf iyo garibisina waa isku mid marka haddaba ciddii kale iska celinaysay almiidaan waasic waa loo gol yahay soo dadaalaan leeyahay wasalaamu calaykum wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam alxamdulilah ilaahay baa mahadle ilaahay baynu mahadnaqaynaa isku keenay goobtan aynu ku haynaa hawsha khayriga ee waddada ilaahay soo mahadnaqaynaa alxamdulilah rabbil caalamiin mar labaad iyo mar saddexaad ba isaga mahadle waxaa kaloo mahadnaqayaa ururkan maanta xaraf shaarati inagu wareejiya deeqda kuwaana si gaaraan ugu mahadnaqayaa waa urur runtii dadaalay oon xoogaal u ahay oo ka kooban uun koox dibad iyo gudahaba ka kooban oo laba guddi oo guddida halkan fadhida iyo guddi kale iyo dibadda aho iskaashatado dadaalay guddidan halkan raggan inoo muuqdaa madaxa xaggaana nin maxamed awr dhaqan la yidhaahdo waa guddoomiye u ah nimankaasaa dadaal fiican sameeyey oo runtii hawshaa busdiga u ahaa
waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo hawshaa ajiibtay oo gacan ka geysatay iyo cid kasta oo ku dadaashay inay hawshaasi fusho aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku daro idinkuna annaga waxa naga istaahshaan bilad baa naga istaahshaanoo waxaad tihiin ururkii ugu horreeyey goobtan oo kale mataqaanaa ku wareejiya deeqaynkaas jisaaka allah khayr allah idinka jisaaysiiyo waxaan leeyahay dadka kale ee ururada kale ay nagu soo socdana qaar baa iyaguba daba socdo laga yaaba inay maanta amba ay berri bilaabaane ha ku daydaan ay isdaba socoto ilaahay dimkii waxaan ilaahay ka baryanaa in hawshaas iyo waddadaasiba ay si fiican ay noogu bilaabantay haddii la haydhaa waa laga warramay runtii waddadan iyo xaalkeeda waddadan waxa weeyaan waa waddo aad iyo aad halbowlo u ah cabdilaahi baa yidhi waxa weeyaan waa wajaaladii iyo hargeytii wajaale labaad maaldhawad lahaa waa runtii weeyaan waxaa loo tartamayaa 120 milyan ee Ethiopia ayaa loo tartamayaa waddada quudhaha bartamaha ku aadan ee caanka ahaydna waa waddada wadda bariis weeye waa waddada bulxaar ka soo bilaabantay dawga cad soo marta hargeysa dhex marta halkaa ka booday xaraf ka booday garabis martay dacwale martay sayla marta deedna balle cabana martay xarshin halkaa uga booday ilaa dhagax bur socota waxaa laga yaabaa dad badan oo dhalinyaro inay yidhahaan waddadaasi maxay ahayd halkaa ka gashay dhagax buur halkaa deedna ilaa qabri taare weeye waa waddada horta baaxadda iyo dhararka iyo miisaanka leh waa waddo ganacsi weeye waa waddo horumar weeye ilaahay waxaan ka baryaynaa cidda bilowday in ilaahay ku guuleeyo xagga kilalka shanaadna rajo fiican baynu qabnaado iyadana qoladaasi galbeedkana way ka soo bilaabeenoo ilaa iyo imika xarshin caratuulkii baa ku soo dhow xarshin markay soo gaadhaan intaa kilalkana inay sameeyaan nimanka maamulka kilalka shanaad iyo dowladda Ethiopia aad baynu rajaynaynaa iyagoo qudhooda waxaynu danaynayaan waa niman ganacsiga sideen u xiisaynay weeye iyaduna saasay waddadaas horta ayay leedahay rajada fiican waxaan u soo jeedinayaa dadweynaha qurbaha jooga iyo kuwa dalka joogaba inay waddada caynka ay tahay in ay guntiga dheesha iskaga dhigaan ay waddada gacan weyn ka geystaan waddooyinku wax hawl yar maaha